السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توع أنا ونحسن داوديال وأنا جاء دكتور محمد أو كرش قنور أو كم قاعد دكتور آيها روح الروا إن كهلا وعيجلين عافمات أو كسبسن بكركة وعيجلين تعافمات كسبسن بكركة waxa aan ugu qasbay inaan ka hadlo sababtoo ah Soomaalidu waxay u badan tahay cudurka dhiigkarka guri walba waxa jooga qof ama laba qof kamid ah oo dhiigkar marka haatan waxaan ka hadli doonaa 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo oo ah cuntooyinka u fiican dadka dhiigkarka qabo iyo cuntooyinka u xun dadka oo dhiigkarka qabo marka waxaan ka bilaabaynaa insha Allah taala cuntooyinka u fiican dadka dhiigkarka qabo waa inay cunaan cuntooyinkan soo socdo koostada waxay muhiim u tahay dhiigkarka sababtoo ah waxa ku jira maado loo yaqaan potassium maadaas potassium kana waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga hadduu hoos u dhacana dhiigkarka nisaas ayuu ku yaraana muuska asigana waa sidoo kale waxa ku jiro potassium asigana wuxuu hoos u dhigayaa dhiigkarka waxa nagu xigo tuunta iyadana waa sidoo kale waxay hoos u dhigtaa dhiigkarka iyo olive oil waxay hoos u dhigtaa dhiigkarka kharaha asigana waxa ku jira maado loo yaqaan potassium wuxuuna hoos u dhigaa dhiigkarka liinta bambeelmada waxay muhiim u tahay dadka dhiigkarka qabo tufaaxa sidoo kale iyaduna waa muhiim waxaana aad u muhiimsan karootada waxay muhiim u tahay inuu dhiigkarka dejiso iyo in macnaha iyo caafimaadka indhaha yaanyada caadiga ah ayadana waxay muhiim u tahay dhiigkarka waxa kala muhiim ah inaad cunto hadaad dhiigkar qabto basasha waxay muhiim u tahay in dhiigkarka ay dejiso waxa kala muhiim ah bataati macaanka kama hadlayo baradhada jibsiga kale dhiigkarka way kicisaa sababtoo ah waxa ku badan sodiumka maado walba sodium ah dhiigkarka way kicisaa laakiin hadda waxa ka hadlaya oo kaliya bataati macaanka waxa kale dhiigkarka u muhiimsan barbarooniga barbarooniga gaduudan aad buu muhiim u yahay sanjabiisha iyadana waa muhiim saliida macsarada waa muhiim wax walbo fiican oo hadda aan ku sheegay hada iska badiso ayagana khatarteeda leedahay macnaha hadda mooska kale tuunto kale iyo tufaaxa waxa hadda ka soo sheekeenayo hadaad isticmaasho xad loogu talagalay jirto in xad loogu talagalay isticmaasho dhiigkarkaaga 100% hoos ayuu degayaa laakiin xadkaas xad ka badan hada isticmaasho maadaama ay ayga fiican yihiin aasdaada fiicnaashaasi baso khatarteeda leedahay waxaan ka sii hadli doonaa haata cuntooyinka ama waxyaabaha dhiigkarka kiciyo ee Soomaaliduna badanaa isticmaalaan maxaa kamid ah lambar 1 hilibka gaduudan hilibka sidiisa waxa loo kala qaybiyaa 2 nooc oo kala ah hilibka cad iyo hilibka gaduudan hilibka gaduudan maxaa kamid ah hilibka ariga hilibka geela hilibka lo'da waxaas oo dhan waa hilibka gaduudan waxaana kiciyaan dhiigkarka waxa kale oo aad dhiigkarka u kiciyo waxa kamid ah cusbada waxa ku jirta maado loo yaqaan sodiumkaasna waxay kor u kicisaa dhiigkarka waa in cusbada aad iska joojisaa ama aad iska yareysaa waxa kale oo dhiigkarka kiciyo waxa kamid ah kofeega dadka dhiigkarka qaba hadii kofeega cabaan waxa imaan karo dhiigkarka inuu kaco waxa kale oo dhiigkarka badiyo ama kor u qaado waxa kamid ah khamrada dadka khamrada cabo dhiigkarkooda aad buu u kacaa sababta aan cuntooyinkan ugu hadlayaa waxay tahay hadii aad isticmaasho cuntooyinkan oo ah hilibka iyo cusbada iyo kofeega iyo khamrada iyo sigaarka oo muhiim ah in la total bala joojiyo maxaa khatar oo imaan kara number 2 waxa uu khatarsan imaan kara dadka Soomaalida ee ku badan waxa loo yaqaan stroke waxa waaye in xididka maskaxda qoodinayay inuu xirmo ama inuu xididka qarxo haduu xirmo xididkaas qayb kamid ah maskaxda dhiig helimayso hadii xididkaas uu qarxana qayb kamid ah maskaxda dhiig helimayso markaas qofku waxa uu arkayaa lug iyo gacan asigoo paralysis ka ah markaas isaga loo ordaya marka waxa ku muhiimsan hadda inaad iska gaarto oo inta aan ku sheegay aad ku dhaqanto waxa kale oo khatar u leeyahay dhiigkarka hadii aad cuntooyinkan isticmaasho oo halista ah wuxuu khatarta u leeyahay waxa kamid ah kiliyaha ayuu dilaa qofku waxa laga yaabaa kiliyihiisa inay dhintaan oo macnaha hadana kuma ogolo dhinto waxa kale oo dhibaato u geystaa isla wadnaha wuxuu dhibaato u geystaa xidid oo waxa jira wadnaha qoodiyo xididkaas ayuu dhaawici karaa
wuuna xirmi karaa xididkaas hadduu xirmo qofku wuxuu isku arkayaa wadna xanuunkaas markuu cabaar qabo soomaalidana isbitaalka ciyow ma ay tagaan gadaal dambe markay tagaan kadib waxaa leeyahay waa la soo daadeen marka intaysan arrintaasi dhicin walaalo waxaan kaa codsanayaa cuntooyinkan aan kuu sheegay inaad iska yarayso ama inaad totalba joojiso cuntooyinka khatarta ah sigaarkana totalba jooji insha allah cuntooyinka fiican ee hadda aan kuu soo sheegay waxaad raacsiisaa oo keliya inaad samayso exercise ama almido macnaha almidaas aad samaynayso waxay samaynaysaa weight loss muxuu ahaa in jirkaaga miisaankaaga ee hoos u dhido haddii miisaankaaga hoos u dhacana cadaadiska dhiigga ayaguna asina hoos buu u dhacayaa laakiin haddii uu adiga oo macnaha aadan samayn wax exercise ah oo guri aad ka fadhiso macnaha cadaadiska dhiiggaaga degi maayo maalin walba waxaad macnaha haynaysaa inaad daawo cunto marataa inaad ka maaranto daawooyinka haddaad rabto inaad ka maaranto daawooyinka fadlan cun cuntooyinka fiican ee aan kuu soo sheegay iskana jooji cuntooyinka xun aan kuu sheegay fadlan videoan ila share garee walaal si aad igala qaybsato ajarka waad mahadsantihiin